عبد المالك waxaan u rajaynayaa inaan la hanjabin xarga ujeedooyinka laga leeyahay dadka dictatorska ah ay ka leeyihiin waxa kamid ah inay dadka ku hanjabiyaan inay dadka ku baraq jabiyaan hada bacda raaga diiwaankeediya yaal dadka soo faqaa jooga kuna daba wada taagan iga daaya ka diida wax kasto duraad sheegtay weerada lab loo liitay maanta ay ku burayaan dambarsoha ciishooni waxa si raaca عبد المالك waxaan u rajaynayaa inuu dhiiranaantiisii ku socdo inuu halgankiisii wado inuu dadkii taagta daraayo taageeri jiray taageero inuu shaqadii u hayay mujtamaca dadka af Soomaaliga ku hadla inuu ku hadlo inaan la hanjabin xarga ujeedooyinka laga leeyahay dadka dictatorska ah ay ka leeyihiin waxa kamid ah inay dadka ku hanjabiyaan inay dadka ku baraq jabiyaan marka Cabdi Maalik waxaan rajaynayaa inaanu xarigaasi hanjabin inaanu baraq jabin inuu halkaas hore Cabdi Maalik siyaasi maaha nin dadka gardarooda maaha nin dadka dulma maaha nin qorisita maaha nin dhibaato u taagan maaha waa nin intaaba inta ka soo horjeeda u taagan waa nin dadka taagta daran inuu taageero u taagan waa nin inuu dadka dulman u hadlo u taagan waa nin inuu fikradiisa xor sheego u taagan madaxweyne loo rajo weynaayo leeyahay wuu soo halgamay oo siyaad baru la dagaalam oo wuu ka hor yimi oo dalkiiba xoreeyay wuxuu bay xasuusisaa mudooyinka dambe SNMta sheekadooda batay SNMtuna inay haysatay hadal maxamed xaaji ibraahim cigaal ilaahay naxariis janaa ka waraabiyay uu yiri war miya naga kacsanayeen mise waa naga kicinayeen waxa muuqatay wax badan oo kamid inay naga kacsanayeen oo de wixii siyaad baraa aynu ku haysan jirnay wax badan oo kamid ay maantana taagan yihiin oo ay dhacayaan marka Cabdi Maalik waxaan u rajaynayaa inuu dhiiranaantiisii ku socdo inuu halgankiisii wado inuu dadkii taagta daraayo taageeri jiray taageero inuu shaqadii u hayay mujtamaca dadka af Soomaaliga ku hadla inuu ku hadlo inaan la hanjabin xarga ujeedooyinka laga leeyahay dadka dictatorska ah ay ka leeyihiin waxa kamid ah inay dadka ku hanjabiyaan inay dadka ku baraq jabiyaan marka Cabdi Maalik waxaan rajaynayaa inaanu xarigaasi hanjabin inaanu baraq jabin inuu halkaas hore